شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Somali Microfinance Institution ama hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee deegaanka Soomaalidu waxaa la aasaasay 2011 taariikhda Galbeed kalendarka. bishii January 31 bayna liisan qaadatay 6 bilood oo process soo maray kadib waagaa sababihii loogu baahday Somali Microfinance Institution in la asaaso waxay ahayd iyadoo deegaanka Soomaalida shacabka ku dhaqan una haysanin wax financial service oo ay ku kalsoon yihiin ama caqiid ahaan ay aaminsan yihiin. Somali Microfinance Institution markaas loo baahday waana institution ku shaqeynaya shariicada islaamka ku shaqeynaya oo waxyaabihii ribada ahaa ee professional institution ee financial institutions ku shaqeynayeen garab maray buu noqday. taas ay ahayd tan ay Soomaalidu ay caqiid ahaan ay muslimiin yihiin islaamkuna uu rabbanaynin in la isticmaalo ribada. hay'ad maaliyadeed oo adeegyadooda maalgelisa ayaa loo baahday gaar ahaan dadka danyarta ah ee dhulka daadsan ee u baahan noloshooda inay kabaan cid siisa dayn ama kabitaala siisa ama raasamaal siisa ayaa loo baahday. doodii halkaa ka timid baa waxaa lagu aasaasay Somali Microfinance taariikhda soo sheegay. Somali Microfinance waxay la dhiirigelineysay 11 sano ee tagtay dadka danyarta ah inay u samayso ganacsiyo iyo wax u noolaan lahaayeen iyadoo bixisay lacag 3.7 bilyan oo bir ah oo ku maalgelisay dadka danyarta ah. dadka ay maalgelisay waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 80,000 oo qof ama 80,000 oo ganacsi inay deegaanka guud ahaantiisa ka maalgelisay ama ay capital uga samaysay baa lagu qiyaasa. waxaana 80,000 qof lagu qiyaasa 80% inay yihiin dad dumar ah oo danyar ah. dumar danyar ah ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin 80%. waxay furatay Somali Microfinance Institution branchiyo ilaa 43 branchi iyo xafiiska heer deegaan ee guud ee ay leedahay Microfinance Institution. waxaana ka shaqeeya shaqaale dhan 465 qof oo ilaa hadda shaqeeya. Somali Microfinance Institution adeegyadii ay bixisay waxaa la filay inuu guuleystay ama la xaqiijiyey markaan daraasaad badan sameynay ee dib loo darsay in lagu guuleystay oo success story fara badan ay jiraan iyo tusaalayaal badan oo dad iyagoo markii hore waxba aan haysanin maanta maalqabeen ah oo ilaahay sabab uga dhigay Somali Microfinance ay jiraan deegaanka gudihiisa gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan. markaa hore waxay ahayd in dadka danyarta ah adeegyadii loo baahnaa la siiyo lana soo qabaliyo. hadda laakiin waxaa loo baahday in deegaanka Soomaalida ama shacabka deegaanka Soomaalida uu helo financial institution ka xoog badan kii hore ee jiray ama inuu helo bangi adeegyada bangi ay ka helaan maadaama dadku ay muslimiin yihiin. bangiyadii professionalka ahaa ee ribada ku shaqeynayay Soomaalidu inay ka qaataan lacago oo ay maalgashadaan ganacsiyadooda ma ayna suuragelin. Itoobiya guud ahaanna waxay ku dhisnayd ama ay horumar ku gaadhay ama ay magaalooyinkooda iyo caasimadaba ku dhistay waxa weeyaan bangiyada professionalka ee ribada ku shaqeeya. financial institution kaasa ka qayb qaatay laakiin deegaanka Soomaalidu uu ka qatanaa
muddo dheer uga qatar. Hadda waxaa la go'aansaday in la sameeyo bangi ay Soomaalidu leedahay oo maalgeliya ganacsiyadooda waaweyn ee large scale projectska ay leeyihiin maalgeliya. Sidoo kale hard currency-ga ay ganacsigooda ugu baahan yihiin meel noqota national bank-igu soo mariyay hard currency-ga inay noqoto yaa loo baahdo. guud ahaanna overall economiga deegaanka ka qayb qaata horumarkiisa iyo kordhkiisa. Marka waxaa la go'aansaday oo boardka Somali Microfinance Institution ay go'aamiyeen in transformation ama geedi iyo guuritaan lagu sameeyo Somali Microfinance loona guuro banki u shaqeeya deegaanka Soomaalida. bankigaasina uu ahaado banki ku shaqeynaya shareecada Islaamka. Marka waxaa la aasaasay ama la go'aamiyey in la sameeyo Shabeelle Bank. Shabeelle Banki in la aasaasay waxaan go'aansanay bilowgii bisha May 2021. process dheer oo ku jiray 7 bilood kadib waxaan ku guuleysanay inaan helo liisankii banki ee Shabeelle Bank oo ah banki ugu horeeyay ee Itoobiya gudaheeda Soomaaliya ay yeelato ahna boqolkiiba boqol mid ku shaqeynaya shareecada Islaamka. Marka Shabeelle Bank waxaan liisankiisa helay 30kii bishii December 2021. markay hal maalin ka harsan tahay sanadkaas ayaa liisankiina soo gaaray. haddana waxaanu diyaar u nahay hadda soo socota ee bisha January 2022 ay tahay 30ka inaynu xafladii koobaad ee furitaanka inaan samayno loona dabaaldego qaadashada liisanka bankinimo ee Somali Microfinance ay ka guurtay magacii hore loona guuray Shabeelle Bank. Shabeelle Bank waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid ka qayb qaata horumarka iyo dhaqaalaha deegaanka Soomaalida. Waxaan rajaynaynaa inuu ahaado mid ay Soomaaliya oo dhan wada leedahay. waxaan rajaynaynaa inay dhammaan Soomaalidu sheerarkiisa iibsan doonto markii sheerka la furo xafladda kadib. aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.